kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn wararka caalamka waxaana ka mid ah xaaladda magaalada Beled Xaawo oo saakii degan kadib dagaal culus oo shalay ku dhex maray ciidamada Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka. ciidankii Jubbaland ee la dagaalay kuwa dowladda oo gabaad ugu tagay ciidamada Kenya oo ku sugan Mandheera. Mareykanka warkul ka soo saaray dagaalkii ka dhacay Beled Xaawo. laba ka mid ah xildhibaanadii ugu miisaanka cuslaa oo iska casilay xisbiyada UPD iyo Himilo Qaran. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Kenya oo warbaahinta kula hadlay Nairobi oo ku baaqay in si degdeg ah Mandheera looga saaro wasiirka amniga Jubbaland iyo xukuumadda Soomaaliya oo ku dhawaaqday in tartan ay u qabanayso shirkadaha xujayda u qaadaysa sanadkan xajka. haddii aad ugu cusub tahay ama aad ugu soo biirtay fadlan daawade subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino. taariikhdu waxay tahay 4 bisha 3 ee Maarso sanadka 2020. intaad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada saaxiibayaal. markaana gado waxaa gabaldhicii shalay istaagay dagaal xoogan oo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa taabacsan maamulka Jubbaland ku dhex maray duleedka Beled Xaawo, gaar ahaan xuduudda ay la leedahay degmada Mandheera ee dalka Kenya. dagaalka ayaa si iskiisa u joogsaday iyadoo la soo sheegay in jirta cabsi laga qabo in dagaalka mar kale uu dib u qarxo, waxaana jira qoysas ka barakacay xaafadaha u dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya. ilaa hadda lama oga khasaaraha dhabta ay ka dhashay dagaalka, hase yeeshee waxaa jira warar sheegaya in dad rayid ah ay ciidamo ku dhaawacmay dagaalka la geeyay isbitaalka weyn ee Mandheera. ciidamada daacad u ah maamulka Jubbaland ayaa la sheegay inay haatan ku sugan yihiin dhinaca xadka Kenya ee ay la wadaagto Soomaaliya, halka ciidamada dowladda federaalka dhawaan ay geysay gobolka Gado ay ku sugan yihiin gudaha Beled Xaawo. waxaa kaloo jira xaafado dad rayid ah ay deganaayeen oo gubtay kadib markii ay ku dhaceen madaafiic xabow ah oo ay isdhaafsanayeen dhinacyadii dagaalamay. wargeyska Daily Nation ee ka soo baxay Nairobi ayaa qoray in ciidamada wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Jaran oo dowladda baxsadka ah lagu soo jabiyay dagaalkii ay xuduudda shalay kula galeen Mandheera iyo Beled Xaawo ciidamada dowladda Soomaaliya. wargeyska ayaa sheegay in ciidamada Jubbaland oo ay u soo awood sheegteen kuwa dowladda Soomaaliya ay gabaad ka soo dhigteen oo hadda lagu hayo saldhigga booliska Mandheera. waxaa saldhigga dusha ka ilaalinaya ciidamada militariga Kenya ee KDF sida warbixinta Daily Nation lagu sheegay. dagaalku intiisa badan ka dhacay dhanka xuduudda Beled Xaawo ayaana waqti badan qaadan kadib markii ciidanka Jubbaland u soo carareen dhanka Mandheera sida warbixinta ay tiri. wargeyska ayaa sheegay in askartan saldhigga la keenay oo ay galbinayeen militariga Kenya ay gaarayaan ilaa 30 askari oo ay weheliyaan saraakiil, waxaana soo bandhigay sawirro muujinaya ilaa haatan macda halka uu ku dambeeyay wasiirka amniga Jubbaland iyo haddii uu weli degan yahay aaga xuduudda ee borderka oo markii hore guri ka kireysay. hase yeeshee qaar ka mid ah saraakiisha sare ee amniga ee Mandheera ayaa gabaad u raadsaday xero militari oo ciidanka Kenya ay ku leeyihiin xuduudda. dhanka kale dowladda Mareykanka ayaa warkul ka soo saartay dagaalkii dowladda iyo Jubbaland ku dhex maray Beled Xaawo. dowladda Mareykanka ayaa xalay waxay war-saxaafadeed ka soo saartay dagaalkii cuslaa ee duleedka Beled Xaawo ku dhex maray ciidanka dowladda dhawaan ee geysay degmadaas iyo kuwa maamulka Jubbaland, kaasoo dhaliyay khasaare kala duwan. qoraalka ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa lagu baaqay dhinacyada ku dagaalamay Beled Xaawo inay dagaalka joojiyaan, wax walbana ay ku dhameeyaan miiska wada hadalka. waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada inay ka fogaadaan iska horimaad ka hubeysan ee ka socda Beled Xaawo. waxaan ku baaqayaa in xal nabadeed laga gaaro khilaafka, ayaa lagu yiri qoraalka Mareykanka. ugu dambeyn Mareykanka ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha dhammaan inay muujiyaan dulqaad, kaas oo ay dani ugu jirto ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka. dagaalkii shalay ka dhacay inta u dhaxaysa magaalooyinka Beled Xaawo iyo Mandheera ayaa waxaa guulo ka kala sheegtay saraakiisha ciidanka dowladda iyo kuwa maamulka Jubbaland, walow xaaladdu ay tahay mid degan. laba ka mid ah xildhibaanadii ugu miisaanka cuslaa ee xisbiyada UPD Himilo Qaran ayaa ku dhawaaqay inay iska casileen xilkii ay ka hayeen kana baxeen. xildhibaan Cabdifataax Daahir Ismaaciil ayaa warqad uu soo saaray ku sheegay inuu iska casilay xilka gudoomiye ku-xigeenka xisbiga UPD kana tagay xubinnimadii xisbiga. waxaan doonayaa inaan shacabka u xaqiijino inaan mowqifkeena ku aadan xukuumadda haatan jirta uu sidiisii u taagan yahay, waana sii wadi doonaan inaan la xisaabtano hoggaanka liita ee dalka. waxaan raadi doonaa Soomaaliya oo nabad iyo barwaaqo ku hesha hoggaan wanaagsan, ayuu yiri xildhibaan Cabdifataax. warqadtaas lamid ah uu soo saaray ayuu isna xildhibaan Xuseen Carab Ciise isaga casilay guddiga fulinta Himilo Qaran kana baxay xisbigaasi. labada xildhibaan
waxay ka soo jeedaan gobollada waqooyi mana aysan shaacin waxa sabab u ah oo ku aadan sababtay xisbiyadan uga baxeen. hase yeeshee xubno ka mid ah xisbiyada UPD himilo qaran ayaa warbaahinta u sheegay in labadan xildhibaan aysan la dhacsaneen qaabka ay wax u wadaan xisbiyada mucaaradka iyo inay mucaaradadoodu ay u arkaan mid aan dhamaystirneen. wararka ayaa sidoo kale sheegay in saacadaha ama maalmaha soo socda ay xubno kale ay iska casili doonaan labadan xisbi kuwaasoo kasoo kala jeeda gobollada waqooyi. xildhibaanada Mandheera laga soo doortay ku jira baarlamaanka Kenya ayaa si kulul oo cara ay ku dheehantaa uga hadlay dagaalkii ka dhacay Beled Xaawo iyo Mandheera inta u dhaxaysa. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Kenya kana tirsan ismaamulka Mandheera ayaa xalay shir jiraayad ku qabtay magaalada Nairobi waxay si kulul uga hadleen xaaladda adag ee wajahaya ismaamulka ay dowladda dhexe ku metelaan ee Mandheera. xildhibaanadan ayaa sheegay in dagaalkii shalay ka dhacay xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya ay dhibaato badan ka soo gaartay shacabka ku nool magaalada Mandheera isla markaana ay qoysas badan ku barakaceen. xildhibaanadaas ayaa dowladda ka tirsan yihiin Kenya waxay ugu baaqeen in si degdeg ah magaalada Mandheera uga saarto ciidamada uu wato wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan. xildhibaanada ayaa sheegay in Janan muddo bil ah uu joogay Mandheera taasna ay ka dhigneen dagaal bilowday waxayna sheegeen in ay aad uga careysan yihiin dadkii shacabka ahaa ee laga barakiciyay iyagoo carabka ku adkeeyay inay arrintaasi kula xisaabtami doonaan madaxda dowladda Kenya. maanta waxaan shirjada u yeernay Mandheera arrimahan sheegi jirnay oo dhibkii aan maaragtay badhow sheegnay yaa maanta dhacay dagaal ka socda magaalada Mandheera Bulxaawa dagaal ka socda dadka dhinaca Bulxaawa BB1 iyo Buruburu kulli nimankii waad ogtahay xagga joogan marka waxaan leenahay dhib badan baa socda dadka waa ka soo barakaceen marka arintana arin fool xun waay waa sar horaan u sheegnay marka ma ogolin in dagaal dhulkayna ka socdo dadkii Kenya dhulkan ku jiro oo Cabdirashiid Janan iyo tiimka meesha ka baxaano askartooda naga saarano dowladda Kenya waxaan leenahay haddii aad maaragtay dowlad tihiin oo dadka wadaneynaysiin nimankan laga saaro col haddii la rabo lagu dagaalo Soomaaliya gudaheeda marka ma ogolin dhib baa dhacay marka dadweynaha waxaan ka codsanaynaa marka taxadar kulli inay taxadaraan kulli meesha dhib baa jira dowladdiina waa arkaysa waxay u hayaan malaha laakiin waxaan leenahay adduunyada u qaylinayna in maaragtay dadka shay la badbaadiyo oo Soomaaliyana arrimaheedii Soomaaliya gudaheeda laga dagaalo nimankan Jubbaland iyo Somali National Army-gana inay dhulka ku dagaalaan oo Kenya ku dagaalaan. wallahi runtii saaki afar saac markay ahayd dagaal ka bilowday xuduudka Kenya iyo Beled Xaawo ilaa hadda ma hayna cadad waxay dhimasho imaan hayna laakiin sidaan la socono dhib badan ayaa meesha ka dhacay ciidankii waxay isku dhex dagaalayaan magaalada Mandheera waxaan ognahay guryaal badan inay burbureen iskuulo badan laga qaxay dadkii xuduud la ahay Beled Xaawo ku laga qaxeen dhibaato badan ay ku sugan tahay aan warkeed hayna runtii arrintaas waa arrin aad iyo aad aan ugu xunnahay. dagaal shalay ka dhacay inta u dhaxaysa Mandheera iyo Beled Xaawo oo ka kartirsan Kenya iyo Soomaaliya ayaa sababay khasaare naf iyo maal leh iyadoo laga barakacay inta badan magaalooyinkaas oo ay ku dhacayeen madaafiic isweydaarsanayaan labada dhinac waxaana dadka ku nool deegaanadaas ka cabsi qabaan in mar kale uu xuduudda labada dal ka dhaxaysa uu ka qarx dagaal u dhaxeeya ciidamo kala taabacsan Jubbaland iyo dowladda federaalka. wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Aadan Duubow oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in la furay tartan lagu jiro daabulida iyo adeegida xujiyada Soomaaliya si lamada sanadkii hore. tartankan ayuu ku sheegay wasiir Duubow sababaha ay haatan fureen inay tahay kasii baaraan degidda adeega xajka ee loo qabanayo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee doonaya in ay soo gutaan waajibaadka acmaasha xajka. intaa wuxuu sii raaciyay hadalkiisa in waxa waliba ee ku soo kordha arrimaha xajka ee sanadkan ay la wadaagi doonaan shacabka Soomaaliyeed maadaama caalamku haatan fara kulul ku haya caabuqa coronavirus. arrintan ayaa ku soo aadaysa kadib markii toddobaadkii hore oo ay soo saartay dowladda Sacuudi Carabiya in dalal ay ka mid tahay Soomaaliya muwaadiniinteeda aysan tegi karin Sacuudiga sababa la xiriira faafidda caabuqa coronavirus. daawadayaal waa naga intaa qodobadii aad nagala socoteen haddii aad nagu cusub tahay ama aad nagu soo biirtay fadlan daawade subscribe channelka